السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدبر سلام يا خيارة قيمها يقدرين تمضن مركز كلا سعوتان channel kan ood kala socotaan horumarka magaalada Hargeysa guryaha cusub wadooyinka cusub ee la dhiso iyo wax kasto wanaagsan oo ku soo kordha dalka ayaan halkan idinku soo gudbiyaa akhyaar fara badan oo kala duwan baa ila soo xiriira oo aad ii dhiirigeliya aad bay ugu mahadsan yihiin akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee markasta igu dhiirigeliya inaan muuqaalada aan soo duubo inta badan maanta waxaynu joognaa xaafadda 26 Juun ayaynu joognaa waxaynu tagnay guri kamida guryaha laga dhisay eriyada loo yaqaan Batalaale waxa weeye meel u dhow xagga dambe ee ka shisheesa xaafadda 150ka maanta waxaynu eegi doonaa gurigan barta ku yaala ee dun muuqada ee aad arkaysaan eriyadan horta kama dhisna guryo fara badani oo waxay ka mid tahay dhulalka hadda la soo degayo soo dhismaya dad badanna ay run ahaantii meelahan ay dhisanayaan gurigan sidaad ka muuqata stiikarka hore ama magaca hore xagga hoose ee soo dhigay muuqaalka waxaa dhistay shirkadda Baxnaan Construction Company oo inta badan dhisto guryo aad u tayeysan oo aad iyo aad u qurux badan Baxnaan Construction Company waxay ka mid tahay shirkadaha ka howlgala magaalada Hargeysa oo dhisa xaafado aad u tiro badan guryo ka dhisa guriganna waxaan idin sheegi doonaa dhista shirkadani faahfaahinta gurigan inta qole uu ka dhisan yahay inta suuliye uu leeyahay Allahumma salli ala Muhammad marka iyo macluumaad kale oo fara badan oo ku saabsan guryaha iyo arrimaha dhismaha ugu horeyn gurigan saan idin soo sheegay waxa uu ku yaala xaafadaasi 26 Juun gaar ahaan eriyada Batalaale kani waxa uu ka mid yahay qolalka guriga saas ayaa dusha sare loo qurxiyay gurigu run ahaantii waxa weeye guri raaxo aad u nadiif ah hadda waxaynu soo galnay qolkii fadhiga iyo cuntadii baynu soo galnay oo leh laba daaqadood oo waaweyn leh iftiin kala duwan leh oo laambadaha si la kala bedbedelayo marna iftiinka aad yaranayso marna iftiinka aad kordhinayso saasuu qolku waafi u yahay albaabkuna waa halkaa ka soo muuqda alaab kala duwan oo ah alaabtii raaxada ee fadhiga iyo cuntadaba waad dhigan kartaa daaqado waafi ayuu leeyahay isna waxaynu soo galnay qol kale oo ka mid ah qolalka uu gurigani leeyahay oo ah qolal dhamaantoodba ah qolal waafi ah walow aanay qolalku aanay isku cabir ahayn oo ay kala cabir duwan yihiin sida qolka guud ee chiefka ayaa ugu cabir weyn inta badan guryaha marka haddii aan idiin sharaxo gurigani inta qol ee uu ka kooban yahay guud ahaan gurigani waxa uu ka kooban yahay 4 qol oo chiifa ayuu ka kooban yahay oo qolkani ka mid yahay waa qolka sidaasi u weyn laba daaqadoodna wuu leeyahay oo qolkii weynaa ee hurdada marka qolal kale oo hurdayna waxa weeye 3 qol oo kale oo hurda marka laga tago ka hadda ka soo baxnay kana waa mid kale oo ka mid ah qolalka hurdada daaqaduhu dhamaantood waa isku wada cabir waa daaqad weyn oo hawada iyo iftiinku iyo leedhuba ay ka soo galayaan guriguna jihooyinka waxa uu leeyahay waxa uu jeedaa dhanka galbeed baa uu jeedaa oo weegaya xagga cadceed ka dhaca ayuu ka soo jeedaa hadda waxaynu soo galnay qol ma aha waa suuligi weeye waa baadkii weeye kani oo sidaas loo dhisay marmarka yara greenka madowga ku yara jiro loo sameeyay muraayadana tolo maxaa la dhahaa muraayadda garan maayo waa muraayadii yareed ee la isku huurin jiray dadka doonaya inay is cadeeyaan ayaa bartaa waxoogaa isku soo yara xiraya muraayadii la dhexgelayay bahalkii ku yaalay gacantii lagu meedhanayay hadda waxaynu soo galnay qol ka mid ah maaha waxa weeye waa kajadii weeye oo sida furniture-ka quruxda badan lagu sameeyay waa furniture aad u fiican oo kala dhaqaaqa ciyaalka dambe waxay yiraahdaan waxa quruxda badan ciriyo dhul bay yiraahdaan waxani waa ciriyo dhul marka
gidaarka marmarka ku yaala iyo furniture-kaba waa la isu ekeysiiyey si ay indhuhu ay u qabtaan wixii oo isku eeg oo aada u qurux badan. furniture-ka inta badan dadka ayaa doorta xaqlayaasha guriga ee u soo dhididay ayaa yidhaahda furniture-ka nooca iga dhig ama shirkad heblaayo iga dalab. shirkado badan oo furniture ayaa wadanka ka howlgala oo sameeya furniture iyo waxyaabahan dee guryaha la dhigto ee looxaanta laga sameeyo oo aada u qurux badan. gurigu waa kaa laba wajahadood buu leeyahay, dhanka galbeedka iyo dhanka koonfureedba ayuu gurigu waa kasaa usoo eegaya. dhakada xagga sare rinshi cas baa la mariyey, waa kalar cad iyo kalar bunniya. muraayaduhu waa blue, muraayadaasi waa yara muraayad berswal baa ku xidhan mise lafta tolo kaga jirta ma garan karo, baashii baabuurta lagu xidhi jiray. gurigani waa guri aada u qurux badan. intii aan duubayey waqti badan ayaan ku dhex qaatay, ilaa 2 hours baan joogay. gurigan waxaa dhisay engineer Nagib baa dhisay oo ah mulkiilaha shirkadan magaceedu idiin muuqdo ee la yidhaahdo Baxnaan Construction Company. waxa uu ka kooban yahay baan idiri 4 hurdo oo jiifa, fadhigii iyo cuntadii, madbakhii iyo stood. 3 suuli buu leeyahay haddaba gurigani. intaas sareed ka ilaaway 3 suuli ayuu leeyahay, mid ku yaala centerka ama bartamaha guriga, kii u gaarka ahaa qolka king bedka la dhigayay xaajiga iyo xaajiyadu qolkooda ku dhex yaala dadkii guriga lahaa usoo dhididay, iyo sidoo kale mid ku yaala xagga dambe ma garanaysaa dadka ku yimaada ama dadka ehelka ayaad odhanaysaa suuliga isaga nafisa idinku, iyo dadka wadada maraya ee yidhaahda walaalayaal suuli baan u baahanay, markaas dadkaas inaad ku caawin kartaan. markaa kaa dibadda weeye, iyo dadka dee ka xishoonayaba wiistaa dambe ku yaalaayo xaggaasaad gelaysaa. halka harkaygii baa ka muuqda. qolkii fadhiga aynu kusoo noqonay, waxaa guriga muuqaalkaydi ku soo celiyey si aad si wanaagsan oo waafiya aad uga bogotaan. gurigu sidoo kale waxa uu leeyahay gaari gal buu leeyahay, aad dhigan karto ilaa 2 gaari. gaarigii xaajiga iyo xaajiyadda, haddii xaajiyaddu ay gaari leedahay weeyahay, haddii kalena ka xaajiga ay xagga hore iska furaysaa. marka gaari galkaasuna uu leeyahay meelihii yaraa aan ku qaban doonaaye ee lagu beerayay dhirta uu leeyahay gurigani. qolkan waxa weeye oo qol ka mid a qolalka guriga. waan idiin sheegay dhammaan qolalku waxay leeyihiin 2 daaqadood oo aada u fiican, maadaama gurigu uu leeyahay 2 jiho uu u jeedo 2 wajahadood. marmarku waa marmarkaa cad ee nadiiftaha oo saxar yar hadduu ku dhaco laga garanayo ama laga fahmayo. haddaba akhyaarta qiimaha badanay muuqaalka la ku dhufo, sidoo kale commentigana la wadaag. qiimaha ay inta badani dadku ay aada u jecel yihiin. war qiimuhu waa imisa? qiimaha maxaad u sheegi weyday? mid baa maalin igu yidhi war waxaaguba waa huwaha haddaanad qiimihii sheegin. qiimuhu inta badan waa qiimo, waa secret weeye, waxaana sir u noqday waa baayactan iyo negotiation iyo ma garanaysaa marnaada dhulka lagu dhigayaa, marna de engineerkaad dhulka dhiganaysaa. macnaha waa wax laga heshiin karo. marka qiimaha whatsappka numberka aan idiin soo dhigay ee engineerku leeyahay kala xidhiidha, weydiiya, waxaad ku tirahdaan waar engineero gurigan maxaad ku dhistay, wax ma layga dayn karaa? haddaad doonto waxaad odhan kartaa lacag baan ku darayaa guriga hinta haddaad ku dhisto qofkan, anigu waxaan dheeraysiinayaa $10,000 baan ku darayaa. de waxun baa lagu daraa, weli lama arko qof wax ku dara. marka waadna ku dari kartaa, waana lagaa dayn karaa. qiimuhu waa qiimo furan, laakiin waxaa jira iga raali ahaada, waxaa jira qiimo dee aan la dhaafi karin oo dee jaajuurkii iyo sabadii iyo sawirkii iyo marmarkii iyo wixiiba ay isku fadhiyaan. inta badanna injineeradu wax badan oo saasi kama faa'iidaan, guryaha dib baaba kharash u galaa. marka waa kaas Nagib la hadlaa, muuqaalkan la ku dhuftaa, commentigana xagga hoose nagala wadaaga. saasi nabadgelyo.